السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ولا ليل سو دواada maanta barnaamijkan waxay kaga warbixinaynaa bacaha qarbadada la dhigo balliyada iyo daamamka ee biyaha lagu kaydiyo waxaan sidoo kale insha Allah warbixin idinka siin doonaa qarbadada gelaya dhismaha waxyaalaha la xidhiidha la soo iibsanayo sida siliga gabyanka ah baraagta loo dhisayo iyo macluumaad badan oo ku saabsan mashruuca balliga ama daamka ee biyahan qarbadada bacahan loo dhigo ayaan muuqaalkan gudihiisa aan idinkula wadaagaya insha Allah walaalayaal intiina guda gelin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad muuqaalka like saartid si uu dad badan u sii gaadho haddaba walaalayaal waxaan ognahay biyuhu in ay aas-aas u yihiin haddii aad markaa beer dhisanaysid ama haddii aad markaa mashruuc xoolo ah aad haysatid oo kale oo marnaba aan biyaha laga maarmin biyuhuna waxyaalaha ugu dhibta badan ee deegaanadeena la laayahay ayay ka mid yihiin marka walaalayaal mashruucan qarbadka loo dhisayo waxaa badi la dhisaa haddayn si macluumaadkan injineerada aan idinka soo qoray aan halkan idinkula wadaago dherer ballac 30 mitir iyo 50 mitir oo dherer ayaa loo dhisaa iyo 30 iyo 3 mitir oo qodaal gudaha ah sida injineeradu ii sheegeen badi deegaanada Soomaaliyeed cabirkaas ayaa laga dhisaa kabacdi marka la dhiso waxaa gelaya cagaf mid qodaysa iyo mid ciidii ka saaraysa waxaa la sameynayaa sidoo kale waxaa loo baahan yahay say ii sheegeen baraag biyaha markaa ku soo dhacaya balliga ka qabanaysa waxyaalaha wasakhda oo kale iyo qashinka iyo waxyaalaha reebaysa ayaa iyadana loo dhisayo sida filter oo kale ah waxaana kaloo la sameynayaa meel lane ah oo exit biyuhu ka baxaan sida markaa balligu markuu buuxsamo ama bacda biyihii tankii loogu talagalay markay wada buuxsamaan oo kale ay biyuhu uga baxaan insha Allah marka walaalayaal waxaa qofku soo iibsanayaa geomembrane HDPE bond linerka ama qarbadka isagoo rool ah waa kan aad sawirkiisa aragtaan qarbadadan ama bacdan ayaa in badan la soo weydiiyay la dhahaa Sakariyo bal ka waran marka walaalayaal qara kala duwan ayay leedahay oo cabiro kala duwan 0.5 mm ilaa 250 ilaa 750 ilaa 1 mm ayay leedahay oo thicknesska ugu adag marka waxa la sameynayaa sida la ii sheegay shirkada ayaa wadanka keena ballacoodu waa 8 mitir oo ballaca dhererkooda la fidinaya marka la kala bixiyona waa 30 mitir 50 mitir 100 mitir intaas iyo ka badanba ayay sii gaaraan ilaa 170 roolalkoodu iyagoo rool ah ayaa mashruuca loo soo gadanaya marka walaalayaal intaas marka soo iibsatid roolalkii qarbadka waxaad sameynaysaa siligii gabyanka ahaa oo mashruuca lagu wareejinayay ama marka daamka yar ee ku qodan ama daamka markaad samaysanaysid qiyaastaada ayaa isagana siliga gabyanka la dhaho ayaa loo soo gadayaa oo marka ay banaan tahay balligu bacda ayna biyo ku jirin ka ilaalinaya xoolihii inay u soo dhacaan waxyaalihii yani kale dhibaatada bacda wax yeeli lahayd oo dhan ayuu ka xifdinayaa oo mashruuca hareertiisa oo dhan lagu xidhaya dahan dhismaha iyo technicalka la xiriira waa inta waxaa sidoo kale gala dabcan cagafta iyo shaqaalihii markaa dhisayay oo waxa loo baahan yahay in bacda markaa la dhigayo balliga in rag badan oo shaqaalaha galaan oo la isku tolo oo la isu dhaweeyo oo wixii maartay la isku xiriiriyo oo dhinacyada laga rido oo hareeraha laga rido oo kor ahaan gudaha ahaan hoos ahaan wixii oo dhan la isku fadhiisiyo sida biyahaasi ayna leakage u sameyn dhulka u galin cimri dheerna uu hawshi u yeesho oo muddo dheer dhowr iyo 10 sano ah oo mashruucan oo kale uu dhisnaan karo qaarkood ilaa 20 sano uu jiri karo sida injineerada soo saara maartay iyo shirkadaha soo saara ay sheegayaan marka walaalayaal insha Allah waxaan rabaa qofkii raba inuu mashruucan ka faa'iideysto oo beertiisa ama xoolihiisa oo kale u samaysanaya injineerada waan weydiiyay waxaan idhahdii xoolo laga waraabinayo ka warrama waxay dhaheen kaaga ayaa loo saarayaa oo meel laga furi karo laga xidhi karo oo loo yani xoolaha lagu waraabiyo oo lane ah ayaa loo samaynayaa kabacdi meeshii geeli ama arigii ama wixii laga waraabinayo kale oo tuumba ku xidhiidhsan tahay oo loo furayo oo laga xidhayo ayaa gaar ahaan loogu samaynayaa sidoo kale ilaa 20 greenhouse oo kale ayaa mashruuca cabirkiisu 30 mitir 50 mitir uu yahay oo kale u waraabin karaa oo ilaa hadda muddo 5 bilood ilaa 6 bilood wax ku dhowdhow oo kale ay biyuhu ku jirayaan oo roobka kale ee dayrta ama guga uu kugu soo gaaraya intaanay ka dhamaanba marka waa mashruuc aad u weyn sada hadba ka garanaysaan waxa gelaya يعني
rool iyo badh cabir uu injineerku ii sheegayey oo yacni 8 mitir ballaca 170 mitir oo dherera oo mashruucaas guud ahaan dhisma ahaan galaya qiimayaashoodu way kala duwan yihiin yacni injineerka dhismaha roolka gacanta qodista wuxoo dhan waa wax laisku fadhiisinayo weeye oo markaa laisla qiyaasayo insha allah walaalayaal qofkii raba inuu ka faa'iidaysto oo mashruuca damlinerka ah ama qarbadka biyaha ah uu samaysto wuxuu igala soo xidhiidhayaa linkiga WhatsApp-ka aan soo dhigayo commentiga koowaad ayaad ku dhufanaysaa halkaas ayaan markaa insha Allah qofkii markaa diyaara ee raba in loo qiimeeyo consultation laga siiyo aan injineerka u ballaminaya injineerkaas markaa qalabka oo dhan iyo wuxuu u baahan yahay iyo qiyaasta equipment ka gelayo oo dhan iyo qarashka ku kacayso oo dhan u qoreeya u diyaarinaya la fadhiisinaya hagaya oo mashaariicda in badan biyaha damlinerka ah ka qayb qaatay oo ka soo shaqeeyay haddaba walaalayaal sidoo kale waxyaalo badan ayaa looga faa'iidaysan karaa biyaha kaydka ah ee balliyada ama daamamka loo samaysto beeraha ayaa looga faa'iidaysan karaa waxaa looga faa'iidaysan karaa xoolaheena nool ama xoolaha caanaha laga liso barqamaalada waxaa sidoo kale xataa Kenya aan arkay inay aad ugu beeraan kalluunka oo meel tuulo ah baa lagu sameynaya ama meel magaalo ah kabacdi kalluunka ayayba ku tarmiyaan oo intaas oo tan oo kalluuna ayaa lagu soo saaraa walow inagu aan badba leenahay qaabo badan ayaa looga faa'iidaystaa biyaha ayaa lagu kaydsadaa oo ay cudurka ka ilaaliyaan ama biyuhu inay wasakhoobaan oo kale waxyaalo badan oo faa'iido ah ay leeyihiin qarbadada ama bacaha dhulka la dhigo tusaale ahaan xilliyada inaga ma artay biyo macaan oo nadiif haduu galo xilliyada roobku uu yacni roobka kala soo dhow yahay biyuhu way qaaliyoobaan xataa waxa ka gadan kara booyadaha magaalada biyaha u dhaamiya ayaa ka soo iibsada oo qofka lacag dollar oo kaasha ay biyahaas nadiifta ay qarbadka ku kaydsan ay u noqdaan faa'iidooyin badan oo xagga beerta iyo xagga xoolaha iyo xagga ganacsi ahaanba ayuu leeyahay tusaale ahaan xaqiiqatan qiimaha injineeradu ii sheegeen ee biyaha badan ee dhowrka bilooda kaydinaya ma aamini kartaan waa qiimo yacni aad u hooseeya marka loo eego inta sano ay jiri karto iyo inta faa'iido ka soo laaban karta waa qiimo aad iyo aad xaqiiqatan u hooseeya marka insha Allah walaalayaal qof kasta cabirku u baahan yahay haduu 10 mitir 20 mitir u dhisanayo haduu baahan yahay 30 mitir 50 mitir haduu baahan yahay 40 mitir 20 mitir hadba inta dhisanaysid inta rool ee galaysa inta shaqaale ee galaya inta xidhxidhid ee galaysa inta qoditaan galaysa wuxuu dhan injineerka ayaa markaa consultation ahaan ku fadhiisinaya oo ku qiimeynaya waayo dadku isku wada awood maaha hal cabirna looma qiyaasi karo insha Allah walaalayaal lambarkan hoose ayaad igala soo xiriiri kartaan si aan markaa injineerkan idinku ballamiyo oo idinku qiimeeyo guud ahaan wadanka shirkadaha ayaa keena waana laga helaa sida la ii sheegay bacaha qarbadada ah nooca ugu adag waa 1 millimeter isagana ayaa ugu qaraf fiican in badanna ku haynaya haddaba walaalayaal lambarkaas ayaad igala soo xiriiraysaa halkana waxaan kaga tagayaa muuqaaladii ku saabsanaa greenhouse-yada iyo beeraha iyo xoolaha ganacsiyada la xiriiray waad ka sii daawan kartaan walaalkiin Sakariya Cabdullaahi Cali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته